hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxa ay maanta ku wareejisay agaasimayaasha guud ee agaasima waaxidada wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda qabiyo qoraalka natiijadii diiwaangelintii dhawaan ay sameysay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyadoo ujeedadeedu ahayd sida ay u soo hubiyaan ugu horeynba waxa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle oo hormood u ahaa hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee muddooyinka ugu dambeeyay ku foolanayd diiwaangelinta shaqaalaha kala duwan ee Soomaaliland qaar ka mid ah agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradaha iyo waliba laamaha kala duwan ee dawladda ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال TV هرقيسة.